بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kusoo dhow kororsa aqoon channel oo aad uga baratay casharro taxanaa oo grammar ah waxaan ku guda jirnay tennisyadii inagoo soo dhiganay laba tennis oo ahaa simple present iyo present continuous tense qaybtii present groupka waxaa inoo harsan present perfect iyo present perfect continuous laakiin dib ayaynu ka dhigan doonaa maanta waxaanu dhiganaynaa simple past tense daawasho wanaagsan Simple past tense. The simple past tense is used to talk about something that started and finished at a definite time in the past. Simple past tense is used waxa loo isticmaalaa to talk about inuu ka hadlo inuu inoo sheego ama uu wax ka sheego ama uu ka hadlo something shay that started kaasoo bilaabmay and finished oo dhammaaday at a definite time in the past waqti cayiman oo baasa waqti cayiman waqti buu ku sargoan yahay baasa waqti tagay ayuu ku sargoan yahay waqti tagay ayuu bilowday una dhamaaday formkiisa haddaba affirmative-kiisa mid walba waxa ugu muhiimsan formkee affirmative ama hadalkiisa caadiga ah ama positive-ka subject plus verb-ko baasa waxaan ka wadaa haddii uu regular yahayna ed baa lagu darayaa haddii uu irregular yahayna qaabku isku bedelayaa loo bedeli doonaa oo irregular ku isbedbedelaan iyagu ed laguma daro marka irregular xagga dambe aynu ka arki doonaa isla casharkan marka subject plus verb ko baasa plus object ama waxaan odhan karnaa subject plus did plus verb ko present plus object verb ko present iyo verb ko baas maxay kala duwan yihiin verb ko present waa verb ko siba la odhan waa verb ko sidiisiya oo karin oo kale imika markuu baas yahayna kariyey bay noqonaysaa ama la kariyey bay noqonaysaa ha marka dhir haddaad keento waa auxiliary iyo verb-ka waa inaad ku celisaa present haddii aan dhir isticmaalina waa inaad verb ka dhigtaa baas haddii uu regular yahay waa inaad ed ku dartaa haddii uu irregular yahayna waa inaad qaabkii isku bedelay u bedeshaa tusaale ahaan she went waxa ay tagtay to schoolkii bay tagtay she went waa ed lama socoto sidaa darteed waa irregular go bay ka timiday oo basic ama base formka went waa go she did go to schoolkii bay tagtay waa isla micnuun waa isla halkii uun she did go to schoolkii bay tagtay laakiin halkan go waa maxay dee waa basekii weeyaan marka did baa halkii imika verbka aynu ka bedeli lahayn did umaan keenay verbkiina base baan ka dhignay laakiin verbkoo baasaad ka dhigtay sida went iyo did meel ma wada gelayaan waa inuu mid baxaa markaa negative-kiisa ama qaab diidmadiisu waxa weeyaan ama qaabkiisa diidmadu waa subject plus did plus not plus verb ko present plus object marka she did not go to schoolka ma aysan tagin marka isaga mar walba waa inaad verbka present ka dhigtaa dad sameynayso negative didna waa inaad soo keentaa plus not questionkiisa ama qaab su-aaleedkiisa waa did plus subject plus verb ko present plus object plus question mark waa did oo auxiliary verbki plus subject plus verb ko present plus object plus calaamad su-aal did she go to schoolkii miyay tagtay note better the verb returns wuxuu ku noqonayaa to its base form qaabkiisii basekii ama infinitivekii ama basekii ama halku ka yimid ama presentkii when marka making laga dhigayo question when markuu making uu sameynayo questions negatives or amaba haddii uu question sameynayo ama uu negative sameynayo did keenta meesha waa in verbka lagu celiyaa basekiisii or ama if we use haddaynu isticmaalno did dee haddaynu did ba isticmaalno in verbku did iyo verb baas meel wada galaan marka did iyo verbku waa inay base noqdaan labadaasaa wada heshiinaya haddii kale ma heshiinayaan irregular verbs irregular verbska horta intaana irregular verbska ku sheegin regular verbska ayaa ka horeeya ka muhiimsan regular verbska iyagu waa verbabka ed lagu daro marka baas laga dhigayo laakiin wana kuwa ugu badan laakiin waxaa jira qaar aan ed lagu darin qaab ahaan isku bedela what is a regular verb many common verbs have unusual present and past tense form marka many common verbs fara badan baa have waxay leeyihiin unusual present and past tense form
qaab aan caadi ahayn oo past ay u sameeyaan iyo present kaba. These are called waxa loo yaqaan irregular verbs. The simple past tense of the most verbs, verbabka ama ficilada simple past-ka ama verbabka waxa tigi noo sameeyaa is made waxa lagu sameeyaa by adding iyadoo lagu darayo ed at the end. Xagga u dambeysa verbka iyadoo lagu darayo ed ayaa laga dhigaa past past markaad ka dhigayso ed baa lagu daraa. Sida look oo kale oo becomes oo noqotay looked. But laakiin the irregular verbs verbabka irregularka ama aan lahayn qaabka loogu hagaago ama ed wax lagu daray ama of verbska waliba simple past tense ama ilaa past perfect waa dhigan doonaa past perfect is different way ka duwan yihiin qaabka marka ed-da lagu darayo. Let us look now balamikaynu eegno irregular verb. Here halkan are some irregular verbs that can change their form. Halkan waxaa qaar irregular verbs soo bedelay iyagu qaabkooda. Tusaale ahaan xagga hore waxaan ku qornay irregular verbkii ama verbkii base ama de isagoo ah infinitive, xaggana isagoo past-ka ama simple past-ka markuu sameynay, xaggana waa past participle oo markuu sameynay tense loo isticmaalo sida past perfect. Marka halkan past participle-ka aynu nidhi waa qaabkan imkaan u qoray waa qaabka ay u qoraan ama ay adeegsadaan Amerikaanku. Laakiin British haddaad aragto British English halkan past ku arki maysid, perfect participle baad arki. haddaad perfect participle aragto waa past participle. Past participle haddaad aragtana waxay u dhigmataa yani past form ama pastkii caadiga simple. Marka waxay ku yara kala duwan yihiin. Marka kani waa kii Amerikaanka. Laakiin haddaad aragto perfect participle halada waxnu hala yaabine waa past participle. Perfect participle iyo past participle oo isla mid oo midna waa American midna waa British. Marka break oo kale broke bay noqonaysaa marka simple past loo adeegsanayo. Break marka ed lagu darayo broken bay noqonaysaa past participle. Do, did, done. Make, made, made. Eat, ate, eaten. Sell, sold, sold. Go, went, gone. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Drink, drank, drunk. Fall, fell, fallen. Here halkan kalena are some irregular verbs that does not change at all. Halkan waxa qaar aan isba bedelin. Ed-na ma qaataan iyaguna isma bedelaan sida cut un bay ahaanaysaa. Hit oo kale. Read bay noqonaysaa laakiin marka la akhriyo read baa loo akhrinaya laakiin read un bay ahaanaysaa. Laakiin haddaad sidii colorka red oo kale ayaa red loo akhrinaya marka ay past samayso. Heart. Boot. Cost. More examples. She went to her job. Waxay tagtay shaqadeedii. Did she do? Miyay qabatay? She did not go. Ma aysan tagin. Hassan work 1 hour ago. Hassan wuxuu shaqeeyay saacad ka hor. Did Hassan work? Hassan ma shaqeeyay. Hassan didn't work. Hassan ma uusan shaqeyn. I met waxaan la kulmay my teacher macalinkayga yesterday shalay. I didn't meet her. Lama kulmin iyada. Did you understand the lesson? Miyaad fahantay casharkii? Waxaan ma fahantay. Marka went waxa weeyaan waxa la isticmaalay waa irregular go bay ka timiday. Did haddii aad timaadana do-dii waxay noqon do waa caadi waa base-gii. Did baa timido go waa base. Hassan worked uu shaqeeyay. Marka tani waa regular tani waa irregular oo ed baa lagu daray. Didn't work. Meet bay ka timid meet marka waa regular met markaynu didn't keenay did not markaynu keenay on did ba soo gelinay meeshii verbka waxaynu ku celinaa meet oo kiisi hore marka kan. Did you understand the lesson? Asharka ma fahanteen. Haddaba mid walba oo soo sheegi jirnaa wuxuu lahaa waxa lagu garto sumadiisii ama adverb of time-kii. Haddaba kana waxa kamid ago last wala raaciyay year month day iyo de wuxuu ku sheegay waqti oo dhanba. Yesterday oo shalay oo kala and so on iyo wixii lamid ah. Part 1 change the following into negative. U bedel waxaan kuwan soo socda diidma ka dhig. She brought me a gift when she came. Waxa ay keentay hadiyad markay timiday. Did he go to Borama miyuu tagay? I found my bookayga waan helay. Hassan bought a new car. Hassan wuxuu soo iibsaday baabuur cusub.
ka shaqee pause yara taabo videoga markaad ka shaqeyso jawaabaha way la socdaan waxaan filayaa inaad ka shaqeysay waxaan ku rajaynayaa inaad wada saxday koobaad she did not bring me a gift when she came she did not bring imay keenin where does come bring what is a bring is the basic form of broad dasare waa irregular marka bring bay ka timid hadday dhidba meesha timid waan bring ku celina marka she did not bring me a gift when she came or the did iyo not laanteedna ma samayn karno negative did he go to Burma he didn't go to Burma I found my book I did not find my book Hassan bought a new car Hassan did not buy a new car hagee baydan ka timid dee bought by regular change the following equation kuwana u bedel su'aal the boy ate his food inankii wuxuu cuntadiisii they cleaned their office waxa ay nadiifiyeen xafiiskoodii where is your car aw baabuurkaagii my friend saaxiibkayga drove the car baabuurkii kaxeeyey he trusted me he trusted me we aaminay the boy inankii ate his food marka laga dhigo question maxay noqonaysaa did the boy miyuu inankii eat oo cunay his food cuntadiisii did baan keenay ate markaa waa inay eat ku noqotaa they cleaned their office did they clean their office ma nadiifiyeen xafiiskoodii where is your car aw baabuurkaagii marka taa hore waxba ugama danyihiin tan bida yara dambe my friend saaxiibkaygii baa drove the car baabuurkii taasaynu dilanayn did your friend miyuu saaxiibkaa drove the car baabuurkii he trust me we aaminay did he trust me may aaminay exercise qayb yar oo waxaan maanta raacinaynaa aynan awal raaci jirin oo use the correct tense isticmaal tense-ka saxda ah adaa kala dooranaya oo garanaya tense-ku wuxuu yahay tusaale ahaan haddaan ku siiyo someone qofka break the window yesterday markaa verb-ka ku jira bracket-ka ayaan ku yidhi isticmaal someone qofka break the window yesterday markaa yesterday baad aragtay waa tense-kee baad u malaynaysaa sentence-kani waad saxsan tahay waa simple past someone qofba broke kaga jabiyey break waxa weeyaan waa regular broke bay noqonaysaa the window daaqada yesterday shalay ayaa waxaan kale inta kale iskale we clean now we are cleaning now because now baa taal meeshan dee waxa weeyaan present continuous now-dana ku sheegaysa inuu sentence-kan yahay present continuous he work a factory every day he baa wada aragtay iyo work a factory every day he dan iyo work tan iyo every day dan iba imika tii hore way ka yara kakan tahay horta every day waa aragtay waxay noo sheegi jirtay every day waxay auxiliary waxay article of time ahayd present simple ama present simple present he baa hadana aragtay he maxay qaadan jirtay dhas bay qaadan jirtay haddana iska daayana verb-kan dee israacinaya markaa waa kan he works a factory wuxuu ka shaqeeyaa warshad or ama waxaan oran karnaa he does work wuxuu ka shaqeeyaa a factory warshad we go yesterday yesterday maxaad ku taqaanaa just baan kuu soo sheegaya war waa simple past we went markaa go waxa weeyaan waa regular we went one to yesterday or ama waxaad oran kartaa we did go yesterday shalay waan tagnay islaalkii un dhir baad keento verb-kii baad went ahaa xagga haraha ayaad ka dhigtay go marka labadan sentence-na waa isla mid labadana waa isla mid casharku maanta halkaa inoogu joogo la soo casharada dambe share like subscribe ugu yaraan hal qof u share garee